أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن قد سلام أخياري أصحابتي إذا ولا لها جنالك دقاق دحشي دي السودو هذا ومالين كلا إيا موقال عصب إلهي أيا نسيي مالين تان كلا أنو قدري وأقوم هاد علينا الحمد لله رب العالمين شكري أكسجين كان العقل أنت إن كنت نفسينا نحلنا الله أضاكم ما تصنع مداس نسيي سودو هذا ولا لها يقول عصب جنالك سبسكرايب كإساري إذ كما هاد علينا ولا يلو إذ سودوينا برشو ناكسن مقعيق ونعيمة سيدو كالو لالي هوري إلي جوغي دبانتين aad iyo aad umahadsantihiin waxaa idinku codsanaa idinkoo isku duuban muuqaalada aan soo geliyo inaa ii sheer garaysaan laygta ii saara kommentiyada ii soo qora aan isku soo ducoono qof wal meeshu jooga ilaahay ku ammaano yeelo balaayada musiibada dhibaatooyinka dhacayna ilaahay dhinaca naga mariyo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun maalin walba waa muuqaal hor leh oo mucjiso gaar ahaaneed xambaarsan muuqaalkan aad wuxuu u leeyahay tacajab yaab ceeb baraha bulshada saacadihii lasoo dhaafay waxaa qabsaday muuqaalkan maaragtay fanaanadan deeq afro la yiraaho iyo hooyadaas da'da ah ee maaragtay waxa ay sameynaysa aad u jeedaan kulley badankiin inaad baraha bulshada ka aragteen laga yaabaa inta aanan arkin halkaan ka arkayin waa hooyo maaragtay da ah socodkeeda iyadii dhacdhacaysa markii halkaas ay ka soo socoto waa idin sii deyn doonaa muuqaalka yacni naagtaan oo iska boodboodayso maaragtay xafladii 1 bisha Agosto u boodboodayso ayay maaragtay faraheeday ka gelinaysaa duburka innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waa naag kaleenta maaragtay dabada ka tijaabinaysa ee faraha ka gelinayso waxaasaa maaragtay maanta caalamkii oo dhan ayna daawanayiinoo maaragtay waa la turjumaa waxaan meel kastaa la geyna innaa lilaahi walaalayaal yacni tacajabkaasaan haysto waa la yaaban yahay soomaalidii habaarkan ku dhacay waa la yaaban yahay waxaase meesha maaragtay aad iyo aad uga sii yaab badan naagta inta dabadeeda farta la geliyey 2 faroodaa la igeliyey iyadaa maaragtay ka hadlayso leed maaragtay hal ma ahane farta kaliya maxaad ugeysaan 2 farood oo weliba aad u adag ayay juq igu siisay tiri okay qof adiga maanta jirkaada meeshii ugu muhiimsaneed u soo dhacay hadduu ninku taaban lahaan masasa uga aamusleed maxaa la rabay inay meesha ku dhangadayso meesha inay ku dhangadayso sababtoo isaqajaanimadii eedadarrada ay samaynayso hadhow dad kale kusoo dhiiranayo oo waxaan dheedheel ka dhiganayo ha xanuunsanaato ha fiyoobaato kuwa hore waa in la xanuujiyaa oo la tusaa wixii ay samaysay abaalmarinteeda hadda inaad gadaal ka tiraahid maaragtay inaa xafladda wasaqayaan diidana ina xafladda adaaba jirkaada kasii muhiimsan xafladda adaaba kow ahoo maaragtay ka muhiimsan oo in lagu tixgeliyo eed waay maaragtay qof walba qofkii kaleento meelaha aan la iska taabanin oo la iska soo gelin ayay tahay xafladaa sheegay meesha aragtid joog haddii qofka jirkaada uu usoo gudbo waa inaa iska dhicisaad iska difaacdaad xaq u leedahay madaxii qabsanayay inay sii wada isku dayaysaa maaragtay wixii markaas ay samaynaysay iyo boodboodkii kadib ay haddana maaragtay inay raaraadiso naagtii isku dayay qoftaan qof diyaar aheedoo haddii lasoo adeegsaday iyo haddii kalaba qof diyaar aheed waa aragay ah hadda muuqaalka idiin sii dayay waa ujeediin halkaasay kasoo socotaa socodkaa xataa dhiba ay doqdo arag dabadeeda gacnaha ka buuxsanayn deeqada intay isku yaayaabtay haddana waxay damacdeen meesha kasii wada hoosha way wadi weyse way tacajabtay ilaan qofkan meeshay dhulkaada jirkaada meeshii ugu muhiimsaneeday farta intay kaa gelisay sii dhaqaaqday marka waa la sabrisiinaa arag qaarka kalena afkay qabsanayiinoo maaragtay way yaaban yihiin naagta laba leewaa maaragtay inay istiri dabadan naagtan talow masuufkii iyo buufinkii wixii la gelinayaa tijaabi ee ka buji innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun naaga buufin soo gashtaa jiro inay rabti inay tijaabiso amay wadati maaragtay cirbid oo istiri maaragtay meesha ku aarya bixi hadday buufin tahay amaba waa la soo adeegsado dad kaleentaa lacag ku sii duqdaan oo yiri maaragtay ceebeyso oo maaragtay waa inaad xafladda dhexdeeda ku ceebeysataa way sameeyaan soomaalidii oo maaragtay dad sharci iyo dastuur uu u kala degsan yaho qofkaan markuu waxaasoo kale sameeyo qof sharci iyo maaragtay ku mutaysanaya xabsi iyo ganaax ma aha marka waxaan dhihi lahay dowladda puntland maaragtay naagtan waa yeesha ah dembiga ay gashay wax yar ma ah walaalayaalow intaa ilaahay ka cabsatiin naagtan wixii sharciga iyo dastuurka idinku qoran waa in la waafajiyaa maaragtay edab darro aad u weyn waa walaalaha weli janalkayga aan subscribe-ka saarin waxaan kusoo celceliyaa walaalayaalow aan iskaalmaysano maaragtay dad fara badanoo hal wado u socda aan wada noqono safarkan aad ugu dheeriy
si aan hawshaan iskula riixno ilan maalin walba waa muuqaal hor loo mucjiso gaar ahaaneed xambaarsan midaanna waa loo sugaayey waa loo fadhiyey inay imaanayso innaa lillaah yacni maanta soomaali meel kastay degan yihiin ma waxaan ka dhicinaa jiro meelihii waa kanaa hooyo da'e waxaan samaynayso wax loo adkaysan kara ma aha marka channelkayga subscribe saaro si aad iila socotid safarkan dheer aa uga qayb qaadatid saxay kugu filan iyo sabar aa u baahan tahay insha allah waan guulaysanaynaa kalimatullaahi alculyaa walaalayaalow culummadiyaa baxsan la fanaanaa ka hadlaysiin culummadiyaa baxsan la sheekh abudalxa maalin kasta waxaa lagu soo qaataa hal maalina ma yiri maaragtay maryam anaa abti u ah mana soo hadlayso maaragtay mana soo gudbinayso waxyaabaha aad ka sugaysiin cid kastoo sugaysay iimaanka allah idin geliy soo ma dhihin waa laga daba qaatay maxaa looga daba qaatay barnaamijku ka hadlabo maryan iyo waxaa lasoo saaraa iyo cabdullaahi waxaa la leeyahay maaragtay sheekh abudalxo sidaas yiri shiiqay markii maaragtay masawirkiisa lasoo saaro waxaa lala soo saaraa maryam iyo cabdullaahi wax kasta oo ka hadlo barnaamijyada uu soo gudbinayo waxaa la samaynayaa maryan iyo cabdullaahi maxaa u dhehaysaa waaye maryan hanoo fadlata hanoo hadasho waay aa u aamusinaysaa fanaanaa ka hadlaysiin marka hadda waxay maraysaaba hadda waayeelkii intay soo baxaan inay farahoodii dadka dadooftadooda ay geliyaan ma wax dhimanaa jir waxaan wax loogu talagalay waayo oo loogu talagalay in meesha ceeb ay ka dhacdo in meesha la yidhaaha allalaa maaragtay xafladii garoowe waa lagu ceeboobay deeqa afuraa sida la yeel kan la yeel laakiin maanta waxay qiimo lahaan lahayd arrinta markay deeqo inay ka aarsato naagtan ay garaacdo meesha ku disho ee ay tiraaho sheegnayaa ciddii ku soo dirsatay waxaa la soo dirsaday duqdan waa yeeshe marna ma iska soo fikiri karta inay futadaas faraheeda futadooda ay maaragtay ay la gasho waa la soo dirsaday waa iska baahan yihiinoo waa hooyooyinka meelaha xaaqo lacagaa la soo siiyo waxaa la yidhi se meesha rabsho uga dhacdo waa inaad maaragtay arrintaas aad samaysaa way samaynayiin laga yaabo $50 laga yaabo $20 xataa yani nafteeda ma ka warqabto mana ogo 20kaasa u cad oo ummadii way dhibaataysan yihiin oo qaar gaajaysanaa jiro marka dhibaatooyinaa jiro taasaa keenaysa kolley ani sidaan u arko laba leewa qofkaan qof waalan ma ah way fiyowdahay labay arrinta u dhexaysaa yaa inay buufin raadinayso cirbid wadato islaheed meeshaan ku ceebaysay aaryada ka bixi ilaanay maalin kasta waxay maqlooyiin dabaa la samaystay dabaa la aariyey dabaa la buufimey dabaa la yeelay qof waxay ahayd maaragtay tuutaha u xiran yahoo dagaalka gala waxaas kadib in arrimo noocaas ku saabsan waxaan siyaasadaa ka dambayso dhinacay rabtaa ka imaado waana la arki doonaa haddii lasoo qabta naagtan ee maaragtay dowladda ee la xisaabtanto waxyaabaa ay ku jawaabi doonto kolley aniga sidaan u arko meel kulama nooli kama warqabo laakiin aqli aan leenahay ilaahayna garaaduna sii ma fahantay maaragtay ani waxaan u arkaa duqdan in maaragtay lacag la soo siiyey la yiri arbush gili maaragtay xafladan dhinacee ka gali kartaa naagtan waa naagtii shalay tuutaha xiran jirtay meeshaan si nabad le waaba inay maaragtay uga cayaarineen futada farta ka gili markay kugu soo jeesatay dagaal ku siisane buuq iyo waxaa meesha ka dhacaayo inta soo dirsatayna meesha inay shaqaalo ka yihiin laga yaabaa ay ka shaqeeyaan oo hadhow iyada ay ka qabanayeen waa lagu soo talagalay hadday kula dagaali weysane hore u sii dhaqaaqa la yiri oo siday dhaqsi ay u bixayso waa aragteen way ka gaarsiisay juq ay ku siisay faraheedo idil maaragtay wayna dhaqaaqday xaraam calaykum yaa qay ceeb maaragtay wax fiican ma ah in sumcad darro sharaf darro maalinta ka dambaysa maaragtay diintii akhlaaqdii aadaabtii ay sii dhunto hadhow maxay samaynayeen dhalinyarada maaragtay yar yare wiilal iyo gabdho leh qof kastoo meesha soo xaadiro culimmadiyaa lagu tijaabinaa marka dambe waxaanoo kaleento ayagoo maxaadireenayo haa qof kastoo arrimaha lala soo faragashto waxaa la rabaa inuu meesha maaragtay uu ku garaaco ciddii saas yeesho edab darro waay maaragtay maxaa keenay naag kaleento futadeeda farta gelinayso waa edab darro tii ugu weyneed marka walaalayaal muuqaalkaanaan maaragtay aad iyo aad aan uga xumaadoon rabay inaan ka hadlo insha allah idin salaama muuqaalka uguma talgelin inaan dheereeyo waa waxaan aad iyo aad ugu yaqsoonayoon aad uga xanaaqsanahay ummadda ilaahay xaqa ha fahansiiyo maaragtay naagahaas kaloo ciidankoo meesha jooga xataa duqdan siday ku baxsan kartaa ee gurigeeda ku aadi kartaa inay dhibaatadaas ay samayso okay ayaga maxay ilaalinooyin maxay tahay shaqadooda maaragtay in iyagu la qabta waa qofkan oo positionka meesha uu joogo nab lagu siiyo hadday ka waran ay maaragtay qarax iyo dhibaato kale ay wadi leed waa halku dhammaan lahaa meeshaas marka amniga in la ilaaliyo dadka noocan oo kaleento maaragtay la taargad garaysanaayana dadkan usoo gudbayo ilaa meesha ay rabaan intay ugu yimaadiin wax wanaagsan ma aha maaragtay insha allah waxaan rajeynaa in duqdan maaragtay sharcigii dastuurka puntland wixii uu qoraayo
lagu abaalmarin doono insha allah biidnillahi kariim adduunkii dadkii saarnaa gaali islaam waana laga yaaban yahay waxaan leenahay boqolkiiba boqol islaamana waxyaabaha aan samaynayno iyo waxa baraha bulshada lasoo gelinaayo maanta adduunku wuu isku furan yahay maaragtay barahan bulshada afkaada ha yaqaano yuu aqooni qofka wuu ku daawana saa adiga wax kaleenta ay kusoo gaarayiin aa arkaysid adigana maaragtay muxuu ahaa waxa vst waxaa laga maaragtay message yani barahan bulshada waxa lasoo gelinaayo waa message kaa turjumaya adiga diintaada akhlaaqdaada adaabtaada dadnimadaada sharaftaada qiimahaada marka saanoo kaleenta xad dhaaf wa saanoo kaleenta xad gudub wa saanoo kaleenta xaraam wa yacni subxaan allah maxay ahayd waxyaabaha meesha ka dhacaya wax wanaagsan kama dhicin meeshaan muuqaalkayga intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa waa idin salaama walaalayaalow ilaahay ma aragtay aan wada barino ilaahay isku keen cafiya insha allah biidnillahi alkariim waalidiinteenna aan u duceyno yacni inta xanuunsanaysa inuu ilaahay caafimaad siiyo inta maaragtay caafimaadkaysatan inuu ilaahay u taam yeelo intii dhimatayna inuu ilaahay u naxariisto naxariista janna ilaahay uu siiyo qabrigooda ilaahay waasac uga dhigo dhalinyarada walaalayaalow akhlaaqda iyo aadaabta ilaashta barnaamijkii xalay aan kasoo hadlay ee maaragtay gabdhihii idabta darnaa kolley halan aniga idin tusay laakiin way ka badnaayeen oo aad iyo aad aan uga xumaaday yacni waagi baryay noqotay arrintii goormaaba wax lagu farxo yacni baraaro aho kaala arag barihii bulshadii hal isbuuc oo wax wanaagsan oo isdaba joog ma haysano xumaanta laga yaabo hal bil kaamil inay isdaba joog noqon karto maaragtay ay marne nisqaamaynin oo acuudu billah maalin walba saa uga cuudu bilaysana ilaahayow biri ha nagu soo celini ilaahayow biri wax xun ha nagu soo celini waa kaas waa xilli cusubaa imaanaya waa ummad ay hadafka u nool yihiin oo dhan aan wada garanaynin maaragtay aadaa wallaahi aan uga xumahay dhalinyaroy waa idinku soo celceliyey aadaa idin jeclahay meesha wanaagsan ka qaata nolosha cidda wanaagsan wax ka qaata culummada ku xirma wallaahi haddii aad doonaysaan adduunka inaad sharaf iyo nidaam iyo maaragtay karaamo ugu noolaataan aakhirana ilaahay meelsan maaragtay uu idin geeyo dhalinyarada waxaan ugu soo celcelinaa waxay tahay annaga dhana inaan isdardaarmina ay tahay laakiin waxaan waqti walba dhalinyarada aan u taarget garaysana ugu soo celcelinaa waxay tahay waqtigan ghafladii ay ku sugan yihiin waa maaragtay wax walba ismoogeysiinayin ama isleeyihiin maaragtay waa biri aad maaragtay gaari doontaa wax aa gaaraysidoo kuu dhiman ma jirto yacni marba haddii aad soo qaangaartay marba haddii aad maaragtay qof gacantiisa iyo maaragtay afkiisa ay wax qaban karaan aa noqotay afkaadana daaci ku noqo gacnahaadana ku shaqayso dhididkaada inaa cuntidna 24 saac maaragtay ku dadaal yacni dhalinyaro oo waxaa arkaysaa ayagoo yar yar oo shaqaysan karo diidan inay wax qabtaan oo shaqooyin qaas oo markaas ayaga u go'an keliya rabo qofka dhalinyarada ee hadda nolosha diyaarinooya waxaa aragtid inaa qabtid oo ka shaqaysatid aaday muhiim u tahay si aad ugu noolaatid dhididkaada lacag xalaal ah oo adiga aad maaragtay shaqaysatay hadda waxaa badanooyo oo aad u soo batay shaxaadka oo maaragtay dhalinyarada oo maanta dhan inay wax shaxaadaan ay rabaan oo maanta dhan inay maaragtay no waa xoogan tihiin maaragtay shaqaysta insha allah waa in salaama dhammaantiin walaalayaal yacni alla kacabsiga isu dardaaranno alla kacabsiga midda ugu horeyso oo mar walba inaan isu dardaaranno loo baahan yahay waxay tahay alla kacabsiga inaan ilaahay ka wada cabsana dhammaanteen waxyaabahan oo kaleo baraha bulshada saan loogu arkayna himaba laga aamusi karo walaalayaalo yacni saa isku leedahay waxaan dadka hala wadaagin saa isku leedahay waxaan dadka hala wadaagin caawa waxaanaa yimid ma wax loo adkaysan karaa wax loo adkaysan kara miya waxaan walaalayaal looma adkaysan karo subxaan allahi gacantaada soo qaad adoo fiyow ee daba qof kalenta uu leeyahay juq ku sii ee iska sii dhaqaaq ma buuxbuuxa uga faa'iidaysa isleheed waxyaabaha nimankaa lagu yaqaano oo markii saanoo kale maaragta buubuuxa la iskugu yimaado ayay gabdhaha ka sheegan jireen oo ay dhihi jireen iyo maaragta naagaha iyo hooyooyinka iyo nimankaas idab ma laha anoo sii jeeday juk isiyaan anoo sii jeeday saan i taabteen war qof kastoo buuxbuuxaanoo kale lagu taabto adigana markaa buubuuxaan imaanaysid yaaqay maxaan idhaahaa ma naqaan meesha horta maaragtay ilaahay hana asturo waa idin salaamay intaas iyo nabadgelyo waa halku dhigeenii iyo ku noolow nolosha aad doonaysid assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qaada qalinka kheyrkaa aad dhaaftid inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun